السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxaa la yiraahdaa IDRIS Abaadir Cabdi. waxaan ahay founderka Abaadir Academy. waa online educational school aad ka helaysaan koorsooyin aad u badan. Abaadir Academy waa laba qayb. qayb waa membership $14.99 aad bishii ku baran karto koorsooyin aad u badan. markaad tagto www.abaadiracademy.com qaybta courses ee ku qoranta ku dhufato halkaas ayaad ka arkaysaa koorsooyinka membershipka ah ee ka yar $15 bishii. gadanayso at the same time haddana markaa gadato aad yeelanayso lifetime access oo iyaga membership aan ahayn. koorsadan maanta waxay ku saabsan tahay Facebook. haddii aadan horta member ahayn qaybta membershipka aad ku jirin definitely waxaan kugula talinayaa inaad qaybta memberka noqoto lacag $15 ka yar bishii iska bixiso koorsooyinka badan ee membershipka ah ee 10 subject ee kala duwan laga baranayo Abaadir Academy inaad ka mid noqoto cilmigaadana kordhiso. si kastaba ha ahaato waxa halkan ku keenay xiiso gaar ah oo aad u qabto Facebooka. koorsadan waa koorso runtii dhameystiran. waa koorso markaad qaadato aad fahmayso step by step sida platformka Facebooka la yiraahdo u shaqeeyo, sida aad uga faa'iideysan karto adiga shakhsi ahaan ganacsigaada ama fikradaada. koorsadan waxay ku saabsan tahay guud ahaan sida Facebook u shaqeeyo. adigu su'aal isweydii, Facebook ma waxaad u aragtaa meel social ah mise meel ganacsi? jawaabta qof walbo way kala duwanaanaysaa. dadka qaar Facebook waxay u soo galaan inay fan ku qaataan, wax ku qoraan, saaxiibadooda kula sheekaystaan, familiyadooda kula sheekaystaan. dadna waxay u soo galaan inay ganacsigooda ku faafiyaan caalamka oo dhan. maanta haddii hal fikir ah hayso ama hal product ah hayso oo aad fahansantahay sida Facebook loo isticmaalo, waxaad samaynaysaa lacag aad u badan adigoo isticmaalayo qaabka Facebook loo xiisiyo. koorsadan waxaad ku baranaysaa number 1 waxaad ku baranaysaa Facebook page-kaaga oo hadda aad bilowday sida aad ku gaarsiin lahayd million likes aad ku baranaysaa. waxaan ku baraynaa mar labadan ku celiyo sida page-kaada aad ku gaarsiin lahayd million likes. maaha 100,000 200,000 maaha, millions. of course qarashaa kaaga baxayo, waqti baa kaaga baxayo, laakiin waad gaaraysaa. Facebook live streaming ku jira, Facebook time and pages for business baa ku jirta. waxa ku jira Facebook advertisement for beginners. waxay koorsadu ay xooga saaraysaa qofka markuu page samaysto oo uu page-kii barto sida likes badan loogu helo, kadibna in uu video yar qaado asagoo lacag yar bixinayo, uu boost ku sameeyo, xiisiyo caalamkan intaasoo thousands of people inay arkaan. maanta Facebooka siyaabo badan baa loogu shaqaystaa. waxaa loogu shaqaystaa inaa adiga product ama service adiga leedahay inaad ku xaysiiso oo 100,000 oo qof aad mataqaanaa hor dhigto.
labo waxaa loogu shaqaystaa in local businessyada ama kuwa ganacsiyada leh page intaad dhisto aad ugu xaysiiso iyaga saddex waxaa lagu mataqaanaa samaystaa in aad adiga maybe tahay qof public speaker ah ama maybe inaad macallin tahay ama inaad dhakhtar tahay ama inaad mataqaanaa qof raba fikirkiisa inuu soo bandhiga tahay ama inaad qof qaariya tahay oo aad jeceshahay caalamka oo dhan in lagaa daawado lagana mataqaanaa lagaalana socdo oo struggle ah ku jirto sida page-kaada aad ugu heli lahayd more likes koorsadan markaa qaadato of course qiimaheeda waa qaali weeye laakiin markaa qaadato waa koorso complete ah oo aadan u baahanaynin ganacsiga ama platformka Facebookga soo u shaqeeyo haddaba haddii aan qodobada aan ka hadlay aan dib ugu laabto Facebook marketing oo kale maxaa ku baranaysaa Facebook marketing waxaa ku baranaysaa sida aad mataqaanaa aad xaysiin u samayn lahayd aabyada la isticmaalo graphic design-ka qaybta Photoshop-ka loo isticmaalayo waxaad kaloo baranaysaa sida aad wax walba aad hayso ugu suuq geyn lahayd haddii aad tusaale ganacsi aad ku leedahay Amazon oo kale haddii aad ganacsi eBay ku leedahay haddii aad online website leedahay adiga haddii aad product hayso oo gurigaada ay ku taalo haddii aad tahayba qof maaragtay counselor ah oo raba inuu dad ku soo jiito dadka mataqaanaa wacyi geliyo ama mataqaanaa sidaas uu service ku qaato fee qaabkay rabtaba waxaad baranaysaa qaabka saxda ah ee marketingka loogu sameeyo Facebookga qaybta saddexaad iyadana Facebook ad-ka waxaad baranaysaa sida sawir yar oo aan text badan lahayn ama sawir weyn oo text badan leh sida loo qaado oo caalamka oo dhan aad u xaysiiso aad u tusto tusaale kale marka hadda fiiriso hay'adaha non-profit organizationada waaweyn sida UNESCO kala maaliyad waxaan arkayay sawir yar soo qaadeen oo cunug yar oo Afrikaan ku sawiran yahay kadibna advertisement ku sameeyeen millions of people ay si fudud ku arkayeen lacagta uga baxday marka fiirsan aad u yar tahay marka Facebook maanta qofkii fahansan wax badan ayuu mataqaanaa kaga hormaraya dadka kale in badanna sirtaan waa la qariyay dib baa loo dhigay annaga isticmaalna la yiri laakiin maanta annaga waxaan go'aansanay inaan soo bandhigno anigu inaan Facebookga qaybtiisa marketingka iyo advertisementiga iyo qaybaha kala duwan uu leeyahay inaan barto muddo ay u qaadatay maanta alxamdulillah waxaan diyaar u ahay inaan soo gudbiyo aqoontii iyo wixii aan ka fahansanahay iyo sida adigana ku horumarin lahayd page-kaaga haddii aad adiga awoodi karin group iyo 2 iyo 3 qof inta isugu tagtaan ayaa hal page investment ku wada samaysan kartaan waxaad samayn kartaa waxyaalo badan qaybaha aad ku baranayso waxaa ka mid noqonaya Facebook for business sida aan ka sheegnayba ganacsiga adiga hadda gaar ku yahay ama dad kale ganacsiyadooda inaad ugu xaysiiso iyagana aad mataqaanaa lacag charge gareyso waxaad baranaysaa live streaming markay noqoto software-rada la yiraahdo Wirecast-ga OBS-ka qaabka video inta looga soo qaado YouTube-ka Facebook lagu download gareeyo computer-kaada Facebook live looga dhigo ayaad ku baranaysaa koorsada which macnaheedu ay tahay any video oo YouTube ku jira inaad soo qaado adigoo haddii aad rabin inaad adiga live noqoto laakiin afkaartii iyo fikirkii iyo dadku waxay rabeen inaad aragto kale haddii aad rabto inaad mataqaanaa live ka dhigto inaad toos inta ka soo qaado YouTube-ka soo download gareyso kadibna aad Facebook live aad isticmaasho adigoo isticmaalaya either OBS ama Wirecast waxaad baranaysaa waxa la yiraahdo ad targeting waxa weeye ka soo qaad service ayaad haysaa ama product ayaad haysaa ama fikir ama arrin baad rabtaa inay dad ogaadaan gooniya maybe waxaa rabtaa dadka Mareykanka kaliya jooga inay ogaadaan maybe dadka state-kaada degan oo kale hadda California oo kale jooga aniga maybe haddaan rabo inaan xaysiin yar intaan sameeyo dadka San Jose jooga kaliya inay arkaan ama dadka Somali jooga inay arkaan ama dadka Kenya kaliya jooga inay arkaan ama dhamaantood inay wada arkaan aniga go'aansanaya marka niche-ka ama target-ka adiga aad leedahay qaabka aad u target garan lahayd ama community-ga aad rabto ayaad ku baranaysaa community-ga haddana si kala saaraysaa dadka income-kooda inta yahay miyaa rabtaa inaad tusto xaysiintan dadka mataqaanaa dhaqaale fiican haysto dadka dhaqaalahooda hooseeya dadka waxbarashadooda hooseysa dadka waxbarashadooda koreysa kuwee rabtaa inaad tusto barnaamijkan ama ganacsigan ama fikirkan aad haysato kuwee rabtaa inaad tusto ayaad ku baranaysaa marka niche-kii iyo targeting ad-kii oo isla socda ayaa haddana casharadii ku jira oo aad mataqaanaa ka baranaysaa waxaa kaloo ka baranaysaa sida aad ugu xiri karto sida Facebook dhexdiisa wax ugu gadi karto alaabtaada
sidaad mataqaanaa website-kaada ugu xiri karto Facebook markaad ku xirtana qofka markuu Facebook ka soo galo toos website-kaada u imaanayo oo wax kaga gadan karo waxa weeye waqtiga hadda maanta lagu jiro systemka e-commerce فرصة runtii aad ku fahmayso Facebook page adiga aad leedahay ku dhisayso malaayiin qofna aad ku gaarsiinayso fikirka walbana aad ku soo bandhigayso maanta aad haysataa waana ka faa'iideysan kartaa dhowr qodob baan codsanaynaa haddii la yiraahdo in haddii aad barato sida page-kaada mataqaanaa likes badan loogu helo ama hundreds of thousands of million lagu gaarsiiyo inaad wax xun aad u isticmaal insha Allah taala haddii aad Facebook aad ka fiiriso dhanka businesska oo aad ganacsi ahaan u isticmaasho runtii waqtiga aad Facebook geliso qiimo yeelanaya laakiin haddii aad mataqaanaa aad Facebook isaga dhex jirto oo maalin walba dad waxay soo qoreen aad comment gareyso share gareyso adigu waxba ka soo galin wax faa'iido aad ku haysan dibkeeda leedahay marka insha Allah taala waxaan rajeynayaa inaad barataan aadna ka faa'iideysataan koorsadana aad qaadataan runtii koorsadan 10ka maajal ka kooban boqolka video laga sameynayo waa koorso qoto dheer oo waxyaalo badan oo hadda aan halkan kaga hadli karin aan ku soo bandhigayno oo qof walbana ma aragtay kaga faa'iideysan karo inuu Facebook systemka Facebooka si fiican u fahmo insha Allah taala intaasaan ku soo gabagabeynayaa waxaan idin leeyahay ka faa'iideysta wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh